Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan idin salaamay dhammaan asxaabta ku xiran kanaalkeena kusoo dhowaada waa walaalkiina cabdimijiid aadan maanta waxaa rabaa inaan ka hadalno askarta waxay horta wax u dilaan si gees ah ama si diagonal ah hadda afartan askari ee is hortaagan mid kastaba wuxuu sugayaa in booskan uu soo galo askari sababtoo ah askari haddii booskan uu soo galo waa uu dili doonaa askartan madow waxay wax u dilayaan sidoo kale kuwaana waxay wax u dilayaan sidaan marka haddii aan hadda askarigan dhaqaajiyo oo aan meeshan geeyo automatically waxaa dili doona askarigan aan fiirino marka laakiin aniga waxaan haystaa difaac oo ah askarigan joogo A2 haddii marka askarigan uu joogin askarigan isla automatically wuu bixi doonaa wuxuu noqon doonaa queen sidaas awgeed marka waxaan ku qasbanahay inaan askarigan qaadno oo si uusan promotion u sameynin uu queen ama bishop ama wax kaloosan u noqonin okay geediga hadda waxaa leh annaga okay waxaan haysanaa marka askari gudbay oo diyaar u ah in uu dalaco sababtoo askarigan haddii uu tago F8 ama dhammaan mid ka mid ah 8 frank waxaa la dhahaa meeshan haddii uu tago askari wuxuu awood u heli doonaa inuu dalaco sidoo kale askarta madowna haddii ay meeshan awood u helaan inay imaadaan wuu dalici doonaa marka hadda madowga ma haysto askar soo gaartay meeshan laakiin annaga waxaan diyaar u nahay inaan dalacno sidaas awgeed marka haddii aan meeshan tagno waxaan ikhtiyaar u leenahay afartan mid ka mid ah in aan askarigeena u dalacino dalacadda automatically uma qaadanaya adigay kugu xiran tahay in aad darajada siisid inaad queen ka dhigtid oo boqorad ah inaad fardo ka dhigtid inaad qalcad ka dhigtid inaad maroodi ka dhigtid marka adigay kugu xiran tahay adba ikhtiyaarka aad rabtid sidaas awgeed askarigeena wuxuu diyaar u yahay marka inuu dalaco haddii aad queen taabto wuxuu noqon doonaa automatically queen oo boqorad ayuu noqon doonaa marka waxaa kaloo jira marka sharciga la yiraahdo embassy sharcigaas wuxuu sheegayaa waxaad taqaanay in askarta ay wax u dilaan si gees ah diagonal ah laakiin sharcigan wuxuu sheegayaa haddii askari sidaan u taagan uu askari laba mar soo dhaafo wuxuu awood u heli doonaa in uu dilo askarigaas oo sharcigii aan kuu sheegay oo ah ambasan hadda haddii aan askarigan dhaqaajiyo oo laba mar aan geeyo meeshaas askarigan wuxuu awood u heli doonaa in automatically uu askarigan kala dilo automatically macnaha markaan ku leeyahay ma ahan macnaha in si automatically u dilay macnaha awoodu u leeyahay macnaha inuu dilo optionkana adigaa leh oo inaad iska dhaaftaa laakiin haddii sharciga waxaa weeye markii hore aan laba mar soo dhaqaaqo waa inuu u dilaa haddii uu iska daayo sharciga gadaal mi qabanayo oo move kale hadduu dhaco embasan sharciga la yiraahdo hadda idin sheegay iguma qaadi karo okay haddii hadda aan sameeyo laba mar haddaan dhaqaaqo askarigan baan fiirino hadda askarigan wuxuu taagan yahay H2 ikhtiyaar waxaan u leeyahay inaan tago H3 ama H4 sababtoo askariga laba mar ayuu dhaqaaqa inaan H2 tago ama H3 inaan tago haddii H2 aan tago markaas waxaan face to face diyaar u ah inaan askarigan kulano ama inuu u dilo mise aniga inaan dilo okay laakiin waxaan biiray askarigan ma raba inaan is aragno aan gudbo oo halkaas aan tago waxaa ku qaban doono sharcigii aan kuu sheegay oo balaaga automatically janis kale ma haysto wuu ku dili doonaa automatically wuu ku dilayaa laakiin aniga waxaan haystaa difaac oo waxaan ku dili doonaa askarigan marka maanta muhiimadeena waxay ahayd sharcigaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan idin salaamay